السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال رمضان كريم كسو دوادا مقال كلا oo daba socda muuqaalkii kan ka horeeyay wali waxaan ku sugannahay qaybta waqooyi ee shishe ee caalamka gaar ahaan wadanka Norway Arctic Circle-ka magaalada Kirkenes. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo channelka soo booqato subscribe noo saar haddii aad hore noo soo booqatay laakiin aad naga ilowday waxaan ku xasuusinaynaa mar kale inaad subscribe noo saarto like-ta iyo share-kana aadan kala bakhaylin. maanta muuqaalku wuxuu ku saabsan yahay sida looga nool yahay deegaanadan shishe ee dhulku barafku iska joogo mar walba sanadkii oo dhan ay nolol uga jirto annagoo sidoo kale booqan doona ama aan soo fiirin doono bad dhan ama dooxa aad u weyn oo bad ka yareen oo baraf noqotay korkoodana ay ku soconayso baabuurta noocyada kala gedisan ilaa kuwa xamuulka qaada. sidoo kalena waxaan soo sameyn doonaa ice fishing ama king crab fishing inaan mataqaanaa aan la soo baxano khayraadka kala gedisan ee ku jira baddaas annagoo ka kor kulmaysanayna barafka dushiisa. ku soo dhawaada barnaamijka. sidaad u jeedaan hadda waxaan isku diyaarinaynaa inaan ambabaxno insha Allah. waxaan qaadan doonaa mootooyinkan loogu talagalay barafka meesha u soconno oo maanta ujeedkeenu yahay waxay aad ugu dhowdahay xuduudda waddanka Ruushka. waa biyo baraf ah korkood ayaan ka soo kalmaysan doonaa insha Allah. sida hore in kugu sheegay gaari meeshaas waa loo qaadan karaa laakiin waxaa ka dheereeya ammaan ah inaan qaadano mootooyinka loogu talagalay barafka. sidoo kale mootooyinkan waxay leeyihiin bahal lagu jiido oo ay dad badan ilaa 9 qof ay fariisan karaan. ila soo insha Allah. What he is doing and you will see it's a quite easy way kind of how we go with it. And yeah, it will look very easy when Daniel does it, but actually locals 50 years ago, when they've seen the first king crabs coming into their nets, they were quite surprised because it was not the time of Google and you couldn't just find what the hell is this big thing in your nets that your grandpa and grandma never seen in theirs. So the king crabs originally, they don't come from here. They come from other part of Russia, all the way to the east, from Kamchatka region. So the name king crab actually depicts about 100 different species. So there are 100. Yeah. And would you like one together? argosot bash argosto ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa arka. meesha hadda aan taagannahay waa meel baraf ah oo biyo baraf noqday korkood baan taagannahay. meesha hadda aragtaan oo shabaqa cagaarka u yaallo waa meesha aan ka soo saarnay king crabtas. tiimkan baa la soconnaa iyagaa noo sharaxaya waxa ay tahay king crabka xilliyada ay inta badan ay timaado deegaankan iyo sababaha loo cuno. insha Allah anagoo in tusi doono anagoo mataqaanaa iyadoo naloo kariyey oo aan cunayna insha Allah. sidoo kale
meeshaan waxaa isticmaala gaadiidka waxay u maraan waxa weeye haddii uu qofka gaariga wataa uu u socdo meel loo socdo 2 saac oo kale intuu wadada mataqaanaa loo sameeyey gaariga uu laamiga u mari lahaa wuxuu sameynayaa dooxadan barafka noqoto korkeeda ayuu marayaa meeshii 2 saac loo socday wuxuu ku tagayaa nus saac meel kasta loo mari karo oo guddi khubra ah baa jira meelo loo calaamidiyey ay maraan haddii meel kasta ay mari lahaayeen waa dhib baa ka imaan lahaa marka meesha hadda aan taaganahana waa meel ayadana gooni ah oo loogu talagalay in dadku ay ka kalluumaystaan ama baashaas argoosatada nooc ka mida waaye ayadoo dhamaahan king crab u aqaanaa baashaasna ayadana mataqaanaa halkaas ayaa laga ugaarsadaa oo xilligan qaboobaha bisha 4aad ama bisha 3aad oo kale ayay deegaanka soo gaartaa sida ay khubaradu ay sheegayaanna waa bahal aad iyo aad caafimaad u leh Each side looks exactly the same. They actually use this one, the big one, for fighting. So there is much more meat, of course, in that one. Don't put your finger because they can still have reflex, and they are quite strong. They can kill each other. They can take each other legs, for example. And I will check if there is any with anything missing. But very often, here. If you check this one, they can lose it in a fight. They can also ditch it. If they are caught in a net with only one leg, they will ditch this one leg because then the whole growth stops and the whole growth focus is only on this missing part. So they can grow claw, they can grow leg, but if you throw one leg in the swimming pool, not whole king crab will grow. We try. It doesn't work that way. It grows only. haddaba daawade waxaan u kurgalay inaan dadka weydiiyo ku qanacsanaanta inay ku qanacsan yihiin inay ku noolaadaan deegaankan iyo dhulka noocaana oo sanadka 10 bilood aan dhihi karo ama 9 bilood oo sidaas baraf iyo cimilo aad u qabow oo daran u yahay jawaabta ay siiyeen ayaa ah in ay ku qanacsan yihiin waliba ay jecel yihiin mahmaah bay isticmaalaan dadka halkaas ku nool iyo wadankan laftigiisa guud ahaan oo ah definas ishi dorli var man dorli klar oo macnaheedu yahay waa mahmaah Norweji ah ma jirto cimilo xun laakiin waxaa jirta dhar xumo oo macnaha wixii taagan yihiin cimilo kasta dharkeeda waa inaad soo qaadataa hadday tahay summer oo qorax ay jirto waa dharka summer ka soo qaadataa haddii ay qabowgu sidan yahay waa inaad dharkaas isku xiran ee aadka u culus soo qaadataa sometimes waa la yaabaysaa waxa weeye waddankeennii oo 12 bilood ay qorax ka jirto habeen iyo maalin ay u siman tahay 12 saacadood oo habeen ah ama 12 saacadood oo maalin haysta haddana waxa weeye isla markaana haysana badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer African mainland dhulka qaaradda Afrika oo is haysta marka laga reebo waddanka Madagascar oo jasiirad ah qaaradda Afrika ee dhulweynaha is haysta waxa ugu xeeb dheer waddanka Soomaaliya haddana waa ka gaajaysan waddankan productiga labaad oo uu dhoofiyo waxa ugu badan waxa weeye waa kalluunka shidaalka marka laga tago Norway waxay leedahay oil iyo gas ay dhoofiso laakiin booska labaad waxa ku jira kalluunka oo ay u dhoofiso wadamada China iyo Japan oo inta badan laga jecel yahay kalluunka anaga waxa dirisnala ah waddanka Ethiopia oo 100 milyan gaaraya waliba ka badan 120 milyan bay ku dhowyiin waxaan soo ogaaday kalluunka iyo khayraadka badda in aad looga isticmaalo huge demand u qabaan haddana waxay ka soo dhoofsadaan kalluunkaas wadamada Thailand iyo Vietnam oo ayaga laftirkooda qayb badan oo kalluunkooda kamid ah ay xeebaha iyaga iyo badiyada ay ka soo qaateen
uma baahna Soomaalidu in ay dad dawarsato, iyada ayaa ka badan, baddeeda iyo xoolaheeda ayaa ka badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana garansiiyo waddankayaga inaan wax ka soo saarano. Dadka ganacsatada ee Soomaalida kii wax soo hela oo dhaqaalo soo hela, hotel iyo maqaaxi waxaanay kuma fikiro. Khayraadka xoolaha iyo badda oo laga faa'iideysto bay Soomaali uga bixi kartaa faqriga iyo dibdhaca aadka weyn. Waxay u baahan tahay dad ku wacyigeliya oo arrintaa ka shaqeeya iyo dowlad u samaysa dadka process ay mataqaanaa hawshaas ku fuliyaan. Insha Allah ta'ala warjeynaa inaan dowlad fiican helno oo shaqada noo qabata. Too much under 170, so that's quite huge. So they grow when they reach that size 170, then the growth is slowing down a little bit, but the volume increases. So they turn up quite big, bulky. They're growing a lot of meat, but not so much further on when it comes to sheer size. We take everything with us. We throw. Check den va! Oj! Den var god! På den lille der! Lille kroken! Vi fisker egentlig sjøørret. Men se på den! Oi! Det var litt av en fisk å avslutte dagen med. Se på den! Det var knall! Hadda waxaa naloo sharaxayaa sida loo cuno king crab. Maqaskaas ayaa lagu kala jeexayaa, kabacdina qaabkaas ayaa loo cunayaa. Waa qaab aad iyo aad u adag, qofkii aanan horay u tijaabin ama u soo cunin ay ku adag tahay. Aniga laftarkayga maanta igu horeysa, idinka waxaynima dhaamo. hase yeeshee waxaa la ii sheegay inay aad u macaan tahay oo mataqaanaa ay aad u qurux badan tahay, inkastoo anugu aan kalluunka kaliya cuno. daawadayaal khiyaarta sharafta leh, muuqaalkii maanta intaasuu ku egyahay. insha Allah waa soo badin doonaa muuqaalada noocan oo kale ah. Ramadaan kariim mar kale. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar. haddaad hore noogu saarin hadda noo saar insha Allah. like-tana aad bay noo anfacaysaa. share wixii faalla ahna commentiga qaybta commentiga nagula wadaag. waxaan jecelahay inaad si degdeg ah u soo jawaabto insha Allah.